dhegaystayaal cabdi warsame baanje oo cabdigahayr ku magac dheeraa anigu ma arag mana soo gaarin sidaasoo ay tahayna waan aqaan cid ay nolol isku soo gaareen lama aanshoorin lamana sheekaysane waxaa i baray gabayadii uu tirin jiray inta iga soo gaadhay taasina la yaab ma laha maxaa yeelay gabayaaga anshigiisa iyo alabkiisa halka ugu habboon ee laga ogaan karaa waa inta uu nool yahay maansada uu tiriyo markuu iishana laga dhaxlo gabayada iyo geeraarada uu maansayahan waliba ifka kaga tago ayaa si wacan uga jawaabi kara in doora oo ka mid ah su'aalaha markaad magaciisa maqasho kugu soo dhaca aadna doonto in waayihiisii aad wax ka ogaato maansayahanadii soomaalida ee colwadka iyo dagaalyahanimada ku caanbaxay way badnaayeen labana wada magac dhabi karee aan ka xuso samatar ilaawe aabbihii cismaan dhaga jarco faarax afcad siciid qamax xuseen xasan cali dhuux aadan iyo tobannaan kale oo dalweynaha soomaalida meelo kala duwan kaga noolaa waayo kala dambeeyeyna uu magacoodu dheeraaday cabdigahayr raggaas aan qaarkood soo sheegay ayuu ku tirsan yahay wuxuu ahaa tiro dhalinyaro ah oo u dhaga fudud markuu isla helaba nin duula oo dhaca geela marab loogu daadshay sida cali dhuux ayaa waxaa ka dhaadhacsanayd in meesigaasi uu dadka ka dhaxeeyo oo cidda uu u xeraysan yahay qofkii subax ka moola duuga aan habeen aakhiro loo qabsan doonin nin hal adag oo wuxuu doono markiiba ku dhaqaaqa ayuu ahaa dabadeedna hiifka iyo haaraanka dadka aan dan iyo daarad ka yeelan wuxuu ahaa nin aan kala jeclayn geela uu markaa weerarayo cidda iska leh weligiisna aan isweydiin ma sokeeyaa leh ma shisheeyaa leh ma colimaa leh mase agoon baa leh wuxuu ahaa nin aad isugu kalsoonoo rumaysnaa inuu yahay habeen dhalad geesi ah raganimo oo idilna cid kaleba waa ku hafadhiyee ay isaga uun isugu soo ururtay taasna wuxuu marag uga dhigan jiray cilmiga xidigiska habeenkii uu calool galay oo afagaalladu dhaceen ururkuna uu soo baxay habeenkii uu dhashay oo dayaxu 14 ahaa isaga iyo dirirkuna ay hiirtii wada fadhiyeen habeenkii ay hooyadii foolanaysay aadkii libaax ay indhaha ku dhufatay intaas oo idili inanka habeenka uu dhasho ay isku toostaa wuxuu noqdaa cirkayeer beer fariijo ah oo aan la loodin karin waa soomaalidii waayadaas siday la ahayd arrintaas xidkaha iyo dhalashadiisii ku saabsanna wuxuu ku sheegtay tuduc ka mida gabay uu tiriyey mar isaga qudhiisu uu isku gubaabinayay inta col humo inuu geel soo qaado wuxuu yidhi afagaal dhac urur soo baxaan ur habreed galaye 14 baan dhashiyoo dirir arooriyaade habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye ma asiibkay baa galay maxaan eel u dhigi waay sida raggii la-ayniga ahaa gabayada cabdigahayr waxay u badan yihiin jacaylka geela iyo dagaalada helitaanka meesigaas ku laran taasna waxaa caddayn looga dhigan karaa gabaygiisa saynle lagu magacaabo ee uu tiriyey beri uu geel ka soo qaaday degmo ay aabbihii xidid ahaayeen oo walaalkiis cigaal warsamana reer abti u ahaa walaal haddaba xaaji maxamuud ow cilmi la oran jiray oo geelaas wax ku lahaa ayaa cabdigahayr erga ahaan ugu yimid ha yeeshee kuma uu guulaysan in loo celiyo xoolihii uu ku raad joogay dabadeedna wadaadkii iyo docogaysigiisii intuu dhagaha ka furaystay ayuu tiriyey gabayga sidaan soo sheegay saynla ku magacaaban ee soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay sida gaarka ahna loogu jecel yahay qaybta hore ee falaadyada libaaxa uu ku tilmaamayo isaguna uu bahalkaas isku maakubayo wuxuu yidhi saynlow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo saryankiiyo hadduu aarankuu sayri jiray waayo sanatayn hadduu sida wadaad soomanka ahaado seeriga galduuriya hadduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saayid laga doono sababadiiyo feeraha hadduu saabka ka higoodo 70 mayl haddii laga maqliyo sugun bannaankeeda masanqaroo waa gaatamaa sixirka muudaya isagoo saliilyoonaya oo micida soofeeyey saliibadaha xoolaha
hadduu saacad ku agmeero saqda dhexe hadduu reera miro oy siiga kor u duusho sasar waa bannayn jiray halkuu saaro jeenyaha surka luqunta siibaha cunaha subhun gurigeeda afartii saxnaa iyo hadduu gool sintaha gooyo sadqa ma leh habeenkaas naftuu dabinta saaraayo anna waxaan sariigtaba haddaan saahid noqon waayey dhalinyaro 8 kuna haddaan saanada u qaybso salaad hore haddaan gala qabiil soobsan jiray geela sadqa ma leh dharaartaa colkaan soodhka mariyaay dabadeed dhaca geela ayuu marmarsiiyo u dooranayaa wuuba bannaysanayaa wuxuu ku murmayaa oo maxaa markaan anigu qaado la iila yaabayaa soo kuwa culimmada uu sayidku ugu weyn yahay dhacdo iyo dhalataba weeraraya oo inta xeryaha ka buuxsada haddana sekada ka bixinaya sidii isagoo xalaashoodii ah wuxuu yidhi haddiise geel su-aashiis iyo sadar la sheegaayo sayidkiiba waa kii mulkiyey suubanaan jireeye 70 buu kitaabada yiqiin saayid weheshaaye sekaduu ka maray qaalmuhuu helay saraaye isagoo sabiibkii maka iyo isaga la moodaayo oo farowga saarmiyo candhada lala sureeraayo waa kuwaa wadaadadu suntaday suuqa marayaaye waxba haysa saban awgayoo sidigi waa aade dhul sawaxay sifaarka oo engegay saxarka oo duulay sarreenka iyo burkuba wuu guraa lagu suxuurtaaye nin 9 jirkeedu u curtaa soor ma haybsado sodog laga xishoodiyo abtiyo seedi iyo aabbo cadda laysay seehiga bulkale sayiraad ma lehe saqiir gowrac baa lagu talciyo siiga iyo boobe meeshiya sidii loo arkuu saancad ka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin ragisma seegeene maxaa aniga lay saarayaa sidinta dhoolxaawis wuxuu sidaas gabayga u wadaba iska daa geeluu celiyey xaajigii ergeyga ahaa ayuu godob raagtay ku soo saaray wuxuu xusuusiyey mar hore culimo ay iyaguba dhaceen iyo geelal qoladiisu ay raaska gabyaaga ka qaaday welina sidii loogu dhaaftay aan laga soo kaban kaba darane wuxuu dareensiinayaa midkan uu hadda ku raad joogaa inuu yahay uun koodii oo ay soo ceshadeen isaga oo weli sumadoodii deelka ahayd ay ku xardhan tahay waa hanjabaad iyo goodi uu nin erga ahi ka argagaxo kuna samro ugu dambaysta wuxuu xaajiga kula talinayaa inta luqunjabkiisku isku yaal oo qudhiisa aan xabadi ka meel waayin in halkuu ka yimid uu isaga noqdo meelisadii haddaba uu ugu quusgooyey gabaygana uu ku soo gabagabeeyey ayuu ku yidhi idinkuba suldaamaa dhacdeen sheekhyo saahide ee aw muuminseedii la jaray lagu saboolowye safarkii galbeed buu warsame sahay u qaataaye wuxuu kaasha sii sahamiyaa saba cadaystii waa kaaliqoo wada sorkogaysay higuu dhaqaye siduu saayiqdeelka ugu dhigay sumaddu waa tiiye raggii samalay geelaad ogayd saanyadaa tahaye siciid iyo nin maxamuud ogaa ima salaameene sonkor uga macaan reer tolkay suuf la xoogsado sii soco wadaadow intaan subco ku naafaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo